حسدي يعتي نقاوة عانا لقو دمائي لسبقية قسي وعاني نقبلتي ما هلو الدبوي اللي قال يا جراد وعاني اللي قلت واجد كودي عسركي عدليغو كنت عرفت قليسو كاسوكي يا عادو فالار وضع حسنا وعسي سيب اللحا أما اللعنت على كل وضع عرفتي أسمعني أنا كويت تيميو على بحبي صوت أنت مني أنت عرف موسيو أنت عارفين وأرضي مسؤول أكيد عليهم وصبكي كبحيهم الغرام قريبين لما عليكي عينيك بعين فهرين وضع عياره وإذا تقعوا waxaan rabaa inaan siiyo guddiga oo isu xilqaamay hawshaa waday waqti badan iyo juhdi badan geliyay guddigaasoo rag dhallinyaro ah aan aad ugu ammaanayno xaqiiqiyan dulqaad badan muujiyey buuro badan ka soo dejiyey xaqiiqiyan wax lagu ammaani karana qabtay guddigaas oo weliba guddoon u ahaa nin aad u daayar asaga da'diisa iyo muuqaalkiisu aad u kala weyn yihiin karti badanna xaqiiqiyan muujiyey waxaan rabaa inaan siiyo
gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Mr. Deeq Shishigo. Welcome. السلام عليكم ورحمة الله. marka hore ilaahay mahad iska leh markii xigana waxaan idinku mahadcelinaynaa sida qiimaha iyo sharafta badan ee uga soo qayb gasheen xafladan oo in muddo qaadatay qabanqaabinteedii iyo sidii aan u qaban lahayn sidoo kale waxaan ku hadlayaa magaca guddiga qabanqaabada aan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo intii ka soo qayb gashay oo dhan marti sharafka fanaaniinta sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo guddigii arrintan xoogga saaray oo suu keenay meeshaan oo jeclaystay inay xafladda tan sida quruxda badan u dhacdo ayagana mahad iska leeyihiin mar labaad iyo mar saddexaad wajiyo qurux badan oo soo diyaar garoobay inay xafladda sida qurux badan u dhacdo horteeda ka muuqdo aadaan ugu faraxsanahay waan idin soo dhaweynaynaa oo maasantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام. عما نقينا إلى ماشان سوق أنا كاني حفلة سورة جديدة. مرة لما عما نقى جدي كسر شوي حفلة مرة بدر. مرة كوات ما مرة قلب أنا أهم بلينا أنا كمان نبت أنا بلينا هنا لا عكلا فضراوتي معناها معميزة ما فهم سنين مرة حوالها شكل واقعنا أنا وحنا أمسنا هاي dadkii Soomaaliya marka hore shanta u qaybiyay dal sideed noo qaybinayaan u arkaa noo arko mid labaad ilaahay waa muqaddar qulub waxa laga yaabaa si kun qaybood anagoo ah ilaa hadda sideed gobol noqonay ay ka sahlanaato in kun la isu keeno sideed la isu keeno sideed gobol ay ka fududaato sidii kun qabiil isku keenayaan dhinacaasna insha Allah khayr kala karjeedina insha Allah مدة ساعات قف كتو صومالي وخلا أما وزيرها هذا محل دبانها هذا وحول أكسن أيوة الله وحول أكسن وشيء وحول أكسن وكسر بحنا أنت بدل ما عرفنا إن شاء الله وقتنا يا أفكار إن إنسان إسرائيل يا تاسنا كانت تيسير بدل وحنا جينا إن شاء الله في القلب قلوب تود أفكار ويسياشان إلهي نو خير وكسر صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم طيبين. سلام الأخوية. أنا يوم بجاي موافقين. إلا على الصاد. وكعارف الصلاة السجود. كل عبادة بصوم الله يفوحك. هذا كل في سنة. waxaa kaliya oo ka hadlaa markadi cadaalad samey iyo waxaa samey ku leeyihi wax kasta digaao haddaad cadaalad samayso oo ummadaas caawisid intaad adduunka joogtaan ummaddu waa ku jeclaanaysaa akale inay jaba kuleeyihi ummadaas ku caleema saartay haddii aadan cadaalad u samayn akale caleemaad ku arooraysaa intaasoo dhan waa ogtaada waxaan rabaa marka waxaa loogu dara asbilaawo waxaa loogu dara nabadgelyo intaas dad lagu caabsan yacni una aadasiqaan ma deeqo jawooyin ma deeqaan waxaana deeqa nabadgelyo nabadgelyaduna maxay ku imaan kartaa waxay ku imaan kartaa wuu ilaahay jideeyey misaal ka soo qaad maraykan waa 54 gobol wey ama state البلدية أخرى كلها وأنا دولة وحول كويس عالم كله أو كل ينتظر إن كان سوين جول جلاله الذين يسمعون إنسان
ولكن لا يكون البر ولكم حياة في الأساس يا أولي الألباب تعالى عليه أساس بالكاس ما شاهد الوحى الإنسان جو شمل الناس عاشق وحارقين جوه شمل الأراد أوصل طلب النار نار النار وعطوب دفع من كيما كسوي جرها وعصبني سنتير وما عمل لك على الدبي وأفكار النار وحكم صوم المرء طلب من الناس أنظر يعني أعراض الدنيا شغل مرة هو بقول السكاء وحكم كان هو عبد قبيل كيس الكوكب ويدري ونقول لك قاسم الحوض ساكت طلعنا الحوض ساكت ومرضو مال أي موضوع مرفان برش مرض الحوض لماذا سلاحي يعمل قبيه لماذا سنتحوض بالصعب ذلك الحوض سحب كيسينا وملك عمر ربناه وأحضر الشيء يعني كاهل من الجلب مركا حوكا عباسي مركا عوتي قوة حوكا سوري حوكا ماشي في قوة بيا وافرا فامنا مركا عالسي خلنا على صاركي وكان عداوة كحوروني نكا صوت عياران على وكلهم بالعكس لو شقي بالعكس ومن كرامي markay jidka caadina weyday anada ciidda ku qaaday aanagu waa laga waayay Soomaali way isu carootay عادفة كنبيسة عبر يارسكان أسيس ومرك عبر يدين هكيني مرك عدالة الوائي من أعلم أرونيو اللي سوريا ريو عرب ليك السميسة علامات ليك السميسة يا عبر يارسكان ليدين الرحيم وعسيسان وقوة الله وربك يحرك الأذي عبر يا سكان ninka soo wadanka ku ciyaara Soomaaliya aqal washaqay oo ninka soo wadanka ku ciyaara oo kalkiis aan tuurto oo wadanka Aisha bedira oo ka xaraam oo difacni maayo aqal washaqay هذا عن التوزيع كو عن التورا عندي هذه عن التوزيع كو عن التورا السكريم ملايو وبلس عفيري سو عسيس كي خبري على خبري على كدين هذا أنا أقول لك يدين على بحينا كايعني وعروضنا كلهم هذا هو إبن الصوت على خبري على خبري على كدين Soomaaliya aqal waxa shaqeeyo midna waxaan jeclahay inaan u sheego shacabka galmudug midna Soomaali weyn maamulka galmudug dadka hogaaminaya waxaan ku leeyahay dadkan 25 sano ayay waxay ku jireen burbur iyo dhibaato waxa weeye intii dib ugu filan waa ka soo daaleen haddii aad rati ku kacsanaysaan waxaan maqlayay dad Soomaali xanti ma moogay higsiga 2006 iyo waxbaan maqlayay oo niman doonaya salaan inay ku karaan aatihiin dadkan dib iyo problem waa ka soo daaleen intii dib ugu filan way soo mareen waxaan oran lahaa in macnaha ma taqaanaa ii sheegaan dhibka loogu darin shacabka galmudug waxaan leeyahay 73 baan waxaan iskuul ka bilaabay Balanballe kulleejada Dhuusamareeb baan dhigan jiray
ardayda kuleejada ku xareysan waxay ka timid dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Galguduud markaan anagu istagaalayno oo ama aan isqabsano dhaxanada ama laba istisho waxaan iskugu hiilin jiray degaan kuwa balanbal ku yimaada islaa kuwa cawda ka yimaada islaa kuwa ceelbuur ka yimaada islaa kuwa cadaada ka yimaada islaa ma aysan jirin wax qabiil mana aan aqoonin waa wiil yaabtigiis waa intii dad yahay oo dhan bay yihiin waxa weeye waa la isku diray shaydaan baa ka shaqaystay way kala fogaadeen haddana waxaad moodaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saalay inay dib iskugu soo noqdaan oo ay wax wada yeeshaan shacabka marka waxaan kula dardaarmayaa dib intii idinku filan waa soo marteen nin dan leh yuusaawirkiisa idinku kacsan waxaan maanta sharafa in halyeegii ugu horeeyay Soomaaliya u qaada caalamka mudday kaadidii weyna Cabdullaahi Ciise Maxamed uu ka yimid gobolka Galguduud waxa inkastoo jeclaa inaan ku fogaado mudday hadalka haddana mudday maadaama waqtigooda uu yaryahay dad badan oo meesha iskugu yimid mudday hadal inay ka yidhaahdaan ay jecel yihiin aniga waxa weeyaan martida aan horkacayo ee ka timid mudday xisbiga shaqaalaha inaan idhaahdo mudday soo dhawaada iyaga mudday mudan wixii aan qof Soomaaliyeednaasi uu yaryahay qoslo ay nool isku soo noqono aan ka baxno waxyaalaha xagga waxa burburiya qabiilku xiyay waynu ognahay aynu danta raacno aynu isu nimaadno waa meel ina kulmisa hadda meel baynu leenahay waa masaajidka Tawfiiq aynu ku bal isaguna aan daba soconaan oo oran kara odayaal ha la sameeyo dumarku ha samaysteen ururaysto qabiil walba urur yar oo hoosta kulay waxna ma tarayo luulay waad ogtahay luulo kale dumarka way maamuli kartaa guddi dumar oo Soomaaliyeed bay samayn kartaa qoslo aynu isu soo noqonno innaga is aasayna innaga caruurteena isu ilaalinayna innaga isu ducaynayna innaga xaq isku leh reer uslaadaynu aan isku soo noqonno aad iyo aad baan idiin salaamayaa ilaahay toobada hayna waafajiyo ilaahay khayrkana hayna waafajiyo galmudugna ha guulaysato waa mahadsan yahay maamulaha guud ee shirkadda daabshiil Mr. Axmed Caawad Ismaaciil haddana waxaan rabaa inaan siiyo dowliye sare Korneel Shahar waa halkan inaan ka sheego galmudug waa gobolka kaliya oo cajiibka sida loo dhisay oo cajiibka alla yarta sida yaab kale oo loo dhisay oo loo farsameeyay oo bilow iyo dhamaad yeeshay bilowgu yeeshay waxa weeye marka hore in odayaashii ay isku wada yimaadeen meel inta la isku yimid la isku tanaasulay oo la iscafiyay markii la iscafiyo ka bacdina loo gudbay gobol weyn oo lagu dooranayo guddigii baarlamaanka ka bacdina baarlamaanka markii la madaxweyne la doortay waxaad moodaaba dowladdii Soomaaliya saxa in la dhisay marka waxaan leeyahay ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi waxaan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo Ali Gacala ayaan salaamayaa iyo inta xubnaha ku jirto waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaan reer Oslo nahay waxaan idin leenahay hambalyo ayaan leeyahay walaalayaal waxaan idin sheegayaa galmudug waxaa ka soo baxay waxyaabaha ugu cajiibsan Soomaaliya waxaa ka mid ah wax alla wixii hogaamiyaashii aad tiriso gadaal hadaa u raacdo kulli galmudug ay ka soo wada baxeen haddaa fiirsa aadan Cabdullaahi Cusmaan haddaa fiirsa Cabdullaahi Ciise haddaa fiirsa kulli waxay ka soo wada baxeen galmudug ay ka soo wada baxeen General Daawud aaway Salaad Gabayr aaway waxa aan sheegno dhan waxay ka Ismaaciil Jumcaale aaway guddigood waxay ka soo wada baxeen galmudug waxaa la hubaa galmudug hadday dowladu noqoto dalku waa degay dalkoo dhan waa degay laysu noqon maayo waa degay dalka marka waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay galmudug inay arrintaasu meeshii ay maanta ay joogto inay ka sii wado ay halkaas ay ka sii wadaan arrinta ay taagan yihiin midda kaleeto galmudug ilaahay wuxuu ku manaystay subxaanahu wa tacaala
waxyaabo badan oo khayraad ayuu ku banaystay ama bad ha noqoto ama beer ha noqoto ama wabiyad ha noqoto ama dad ha noqoto ama cadad ha noqoto ama aqli ha noqoto ama cilmi ha noqoto waxa uu ilaahay ku dhisay waxaan u hambaliyaynayaa oon leeyahay hambalyo iyo bogaadin ku guulaysashadii aad ku guulaysateen doorashadii dhacday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo ku-xigeenkiisa maxamed xaashi cabdi waxaan leeyahay hambalyo farsamada samaynta maamulkan xaliimo ismaaciil ibraahim xaliimo yarey hambalyo gudashada aad gudato hawsha hoggaanka wanaagsan ee aad horseedo taas waxay muujinaysaa ay markhaatina ka tahay haweenku inay awoodaan xirfadeeda leeyihiin kartideeda leeyihiin dadkooduna u ogol yihiin markii loo dhiibo inay ka soo baxaan waxaa mahad iyo sharaf iskale dhammaan intii u dooratay waxaana hadda ka dalbanaynaa maadaama dastuurku uu 30% u dhigayo laakiin laga weecday 8% kaliya ee ku qoy 9 kaliya dumarku ay heleen golaha wasiirada oo la soo dooranayo mudane madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed waxaan ka codsanaynaa inaad maamulkaaga 40% haweenka ka soo dhigtid Sarai, Abakina Taktarane, Kagina Wagini, Somalie, Iskuti Sarai, Abakina Taktarane, Kagina Wagini, Waharamu. Diga kubanayso tiyaagi loo diido la adoonsada mahay isku tiirsadaye abbakiina taagdarane taageera wadegeena calayado Sarai, Abakina Taktarane, Kagina Wagini, Somalie Toso, Iskutim Sarai, Abakina Taktarane, Kagina Wagini. يا أماسنتين taagan yahay marka la heesay mikrofoonka waa shanqarooma waxaan u maleeyay al-shabaab inay meesha noo soo gasho shoogan qaado wallahi markuu yiri marka waxa way naga daaha naga nixin sokor baan qabaan naxdin uma baahni marka ay ugu kicin sokorta waxa jidda aniga waxa waaye wax badan aan qurbaa ku noolaa waagi aan xamar joogay oo taksiga iyo iska roga aan wadi jiray wixii aan tabcay waxay ahaayeen waxaan islahaa 60 markaan noqotid lacagtaada iyo adduunkaaga aad ku raaxaysanaysaa adigoo caano geel cabaya maalintii maxaa la yiraahaa subaxina beer ari ku quracanaya maalintii aniga 42 sano aan gaaray ilaa da'du waa 3
و20 و40 و60 jaa markaan aan ka baxay labadii hore oo kii kale to aan u shaqaysanay aan galay ayaa qabtii dhacday ilaa inta waxaan ku noolaa qurbahan ku noolaa marka waxa weeye way dhib badan tahay qurbe anigu waxa waligay iyo Ilaahay waxa jeclaa wadankayga inaan ku noolaado laakiin waa ii suurtoob weyn runtii aniga 89 kii baan ilmahayga ka soo kaxeeyay xamar ingiriiska ka dhiibay inta la iga qafaalay habeen oo la yiri waxa la geynaa meeshii oo baadiyaha ahayd oo ilmaha lagu qafaali jiray landa baan tagay sidii baan waa ilmahan waa lagu soo gelinaa ani waxa iri wadanka anigoo waliba shaqadii la iga saaray wuxuu la igu sameeyay waxa iri madaxweynaha wadanka iyo aniga waa u simanahay wadanka ay hadduu isagu xataa ku nool yahay anigana dameer haddaan ku wada xataa wadankayga waa ku noolaan karaa baa ma uga tagaayo shaqada iga saaray uga tagi may wadankayga ilmihii baan geeyay England waan noqday wadankayga baan tagay taksiiraan noqday habeenkani waxaan wada jiray iska rogi jacayl aan u qabo wadankayga marka waxa weeye marka aniga gaalkacyo waa imaan doonaa laakiin problemka igu dhacay waxa weeye waxaan gobolkayga baan dhahay lastigu noqonaa markaan tagay 2006 kii xamar ayaan raadiyaa waxaan ka sheegay gobolka anigu aan u dhashay inuu lastiga noqon doono lastigi waagaas aymayba lahayd waxay ahayd waagaas Puntland iyo Somaliland iyo xamar iyo galmudug biya ma aqaan galmudug markaas ma soo bixin bay la tahay saddexdaas ay ahayd baan maleynaa waxa islaha marka xamar waa tagay Somaliland waa tagay atigtid baan islaamay 55 madaxweyne oo kala soo baxay iyo 15 kale oo konton oo maxaa la yiraahdaa gobol baa soo baxay hadda waa naxsanaa ballankana waa qaado waxa ay gobolkayguna lastigu noqonaa kontonkii meeloodna ma soo mari karo waa boqooya marka waxaan sameeyaba ma aqaan marka hadda ala kulli reer galmudug reer gaalkacyo gabagii baan tiriyay aan gaalkacyo ku soo degan lahaa maalintan gaalkacyo ka soo dego waxa aan idin weydiisanay waa in ay igu diyaarisaan airport waxa ay gaalkacyadii wacnaydee aan ka guurnay anigoo guga jira 6 sanadood gobolkayga mudug boqolii keeno galabta dhex jooga go'asadii iyo cibti gaawacaan ay igu sii gisiinki macaana mudug gaarka u ahaa markaas airportka la igu keena gaawi caanaha anoo haystay in la igu qabtaan raba masawirka iyo cibti iyo go'asadii waa maadsantiin haddana hala baashaalo
xuduudaha maamul goboleedyada gaar ahaan taariikhdan bartay wax laga taariikhayn kara ma aha xuduuddii waxaan rabaa oo dhowdaan ka gabiyey xuduuddii waxaan rabaa cabdulla raaga ka gabiyey xuduuddii waxaan ka rabaa oo maryam mursal ay ka haystaan ka hor ee meel kasta ka waxaysaa loo baahay xuduuddaas in laga lawado marka waxaan is jiray maamul goboleedka galmudug waa bilow uu yagalay haddii maamul goboleedka la waayo galmudug haddii la waayo soomaaliya la waayo maxaa dhacay xuduudkaas waa la waayo bartamaha uu ku yaala baa u soconay ma leh ummadda Soomaaliyeed waa in maaragtay maamulkaas uu yahay maamul ummadda Soomaaliyeed magaceeda ku shaqeynayo meel ay joogto ummadda Soomaaliyeedna oo wakiil ka yahay ayaan rajaynaynaa inay noqoto ayaan ahayn maaragtay gobolkayga kaliya ayaan maamulayaa marka waxaan leeyahay waxaan u rajaynayaa inay noqdaan kuwii hanto maamulka la dhisay iyo dawladnimada ayagoo kaashanayo shacabkooda galmudug ayagoo shaabsanayo iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed koox kaliya wax ma qaban karto ummaddu haddaan wax lala qabanin marka waxaan leeyahay waan salaamaya hadal meesha kuma arrinta badan ka hadlay laakiin aniga inaan hambaliyo kaliya ayaan isku taagay hambaliyo ayaan leeyahay inta soo qaban qaadiday oo meeshaan shirkan aan saxilayne waxaan u leeyahay guul baan u rajaynayaa iyagana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadkeena iyo dalkeena iyo madaxdeennana waanu jecelnahay horumar baanu jecelnahay marka waxaa qasabada inaan tala gaarsiino inaan isaga sacbino oo maaha sida caruure sidaa awgeed dhowr qodob baan doonayaa inaan ka hadlo marka koowaad waxa waaye horta waxaan ognahay si laga dhawaajiyeyba taariikhda dadka galmudug waa dad qaranka Soomaaliyeed door weyn ka soo ciyaaray haday tahay gobonimo doon haday tahay dimuqraadiyadii lixdamaadkii haday tahay kadibba dagaaladii sokeeya ayaa haddaba dhibaato keenay oo waxay noqotay in kartidii dadka galmudug ay u weecatay meel qalad ah marka waxaa la doonayaa in wadadii saxda ahayd kartida iyo garashada dadka lagu soo celiyo oo ay dantooda iyo danta ummadda Soomaaliyeed wax ka dhisaan ilaaha maskada intaan kuliyay oo meel wanaagsan ku kuliyay hay sheekada u soo darayo kama iman qaar hadlayna marka waxaan u xafladda sharafta badan ee ku taageeraynaa dowlad goboleedka galmudug state ee ka dhisantay gobolada dhexe dhammaantood
شقيق